Education Platform. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى أيام ما دسكله maantana waa xiso kale oo ka mid ah xisooyinkeenii aan ku baranaynay maadada afka Soomaaliga fasalka labaad ee dugsiga sare. Marka maanta waxaan ka bilaabaynaa casharka 10aad ayaan ka bilaabaynaa insha Allah taala oo bal aan arki doono macluumaadka iyo waxyaalaha uu maaragtay uu xambaarsan yahay. Taqriiban cashar walba wuxuu xambaarsan yahay qayb ka mid ah afkii Soomaaliga iyo maxaa la yiraahdaa murtidiisa iyo xikmadihiisa iyo qaybaha uu kala baxbaxay. Marka casharada dhamaantood waa casharo munaasabo ay ka wada dhaxaydo. Marka casharka 10aad iyo bal sida uu maaragtay uu shaqeynayo ayaan maantana aan bal maaragtay aan ogaanaynaa iyo bal waxa uu ku saabsan yahay. Marka casharka 10aad wuxuu ku saabsan yahay kalluunka khayraadkaas yani aad iyo aadka u taqaaniin kalluunka ama maaragtay malayga midii aad dhahdaba ayuu ku saabsan yahay. Marka ujeedada ugu horeyda horta casharku waxa ay tahay kolka ardaygu uu dhameeyo casharka waxa uu karti u yeelan doonaa in uu barto erayo badan oo la xiriira badaha, webiyada, birbiyoodka iyo waxyaalaha la midka ah. sidoo kale inuu fahmo erayada kalluun, malay iyo jilaabasho. sidoo kale inuu akhriyo maqaalo ku saabsan kalluunka iyo jilaabashada kana warceliyo weydiimahooda. sidoo kale inuu sheego nafaqooyinka muhiimka ah ee laga helo kalluunka iyo malayga. iyo ugu dambeys inuu qoraal ka sameeyo sidii loo horumarin lahaa xirfadaha magac bixinta iyo eray bixinta kalluunka. kalluunku yacni kalluumaysashadu waa xirfad, magac bixinna way leedahay, waa wax halkan aan ku baranayno qayb ka mid ah, iyo eray bixinta sideedaba mawduuca kalluumaysiga. waayahay marka waxqabadka koowaad wuxuu ku dhahay waxaan akhrinayaa sheekada soo socota oo aan ka warcelinayaa weydiimaha la iwarsaday. waa maaragtay waa xujo yar oo lagu weydiinayo. marka si waxay la macno tahay oo xogaa ay u dhowdahay casharkii hore aan ku soo qaadanay oo kaleeto. marka tanna iyadana waa arkaynaa bal sida ay tahay, marka waan ka jawaabaynaa. waayahay marka xujadu waxay leedahay qof jilaabato ah baa doonaya, yacni qofka jilaabatada waxaa la yidhaha qofka oo kalluumaysiga ay xirfadiisa tahay. marka qof jilaabato ah baa doonaya inuu webi ka gudbo. qofka jilaabatada ah waxaa weheliya oo la jira libaax, ri iyo caws. qofka jilaabatada ahi waxa uu haystaa doon yar ama huuri yar. huurida waa doonta yarta ah oo halkii mar qaadi karta isaga iyo mid ka mid ah saddexda kale oo waa libaaxa ama rida ama cawska, mid keliya iyo isaga ayay qaadi kartaa. marka haddii rida iyo cawska la isaga tago, rida maaragtay way cunaysaa cawska. haddii rida iyo libaaxa la isaga tago marka ugu horeyda, libaaxu wuxuu cunayaa rida. haddii rida iyo cawska la isaga tagana, ridu way cunaysaa cawska. marka maxaad maaragtay aad kula talin lahayd jilaabtaha si uu uga gudbo webiga? marka xujadan yartaa marar badan waa laga yaabaa kuwa maaragtay lamid ah in aad soo aragtay. waxaa loogu talagalay bis caqliga xoogaa in laga shaqaysiiyo ayaa loogu talagalay. munaasabada casharka ay la leedahay saas way, tan iyo midda kasii dambeyda. marka waan ka shaqaynaynaa haddaan ugu bato hal xabo keliya ayaan kuwa laga shaqaynayo oo midda xujada ah qaybo ka mid ah ama midda xujada ah ayaan maaragtay idiin reebayaa keliya. laakiin waxaa laga shaqaynaa oo dhan oo casharka ku jiro oo dhan kulli maaragtay shaqadooda waan tilmaamaynaa, waan ka shaqaynaynaa. inaad saas u ogaataa lagaa rabaa. waayahay marka maxaa la samaynayaa? meesha waxaa yaala libaax iyo ri iyo caws. ninkan kalluumaystaha marka muxuu samaynayaa? muxuu qabanayaa? marka ugu horeyda shaqada uu qabanayaa maxaa waa ninka kalluumaystaha
ninkan doonida yar wataahi marka ugu horeyda wuxuu qaadayaa doonta waxaa isla raacayaa isaga iyo libaaxii, markaas ayuu wuxuu geynayaa meesha webigii ka gudbinaya, markaa meeshii la rabay in la tago ayuu geynayaa. libaaxii ayuu markaa uu ka soo tagayaa, doontii wuu ka soo dejinaya. isaga keligiis ayaa wuxuu la soo laabanayaa doontii, wuxuu u imaanayaa haddana maxaa la yidhaahdaa haddana wuxuu mar kaleeto uu qaadayaa cawskii ayuu maaragtay uu mar kaleeto uu qaadayaa. cawskii marka uu qaado wuxuu geynayaa meeshii libaaxi uu joogay. libaaxu cawskii ma uu maaragtay ma taabanayo ama maaragtay ma uu cunayo. markuu cawskii halkaas geeyo haddana mar kale ayuu soo laabanaya. doontii ayaa ugu dambeys waxaa wada raacaya isaga iyo ridii, halkaas ayay wada tegayaan. saasuuna marka ku kala celinaya ee sheekadu ay ku dhammaatay. marka tan aad iyo aad ayay u sahlan tahay, fudeed waay. tii markii hore oo kale markaad soo fahamtay, tanna iyadana way sahlan tahay. waxqabadka lagabaadna fiiri waa xujadii la rabay inaad ka shaqaydo, idinka aad ka shaqaynaydeen. waxaan akhrinayaa masalada soo socota oo aan soo dhirinayaa furdaaminteeda. marka waxay u baahan tahay in waqtina lagu bixiyo, si fiican aad u fiirido oo waqti badan aad ku bixido. marka si wanaagsan u fiiri. iyadana 10kii number ayay ka samaysan tahay. midda ugu horeyda koos adeega ay iibsatay waxaa kamid ah miraha bardaha. geedkii lahaa miraha bardaha mirihiis ayaa kamid ah basal iyo yaanyo. midda labaad adeega uu ku jiro maragta cambuhu kuma jirto marooradu. maroorada waxaa la yidhaha waxaa laablaaban oo dhan oo aan tooska ahayn ee qarqaroofan oo dhan ayaa maaragtay la dhahaa. haye midda saddexaad adeega qiimihiisu yahay shilin soomaaliga 4250 waxaa ku jira kabsaro ayaa ku jira. adeega uu ku jiro moosku waxa uu shilin soomaaligiisu yahay 3000 ka badan yahay adeega ay iibsatay koraad. adeega qiimihiisu uu yahay 7250 iyo miraha cambuhu midkoodna kama tirsana oo kama mid aha adeega koos iibsatay. midda lixaad adeega kilwe adeega qiimihiisu uu yahay 8250 adeega qiimihiisu uu yahay 7250 adeega uu ku jiro miraha gobku iyo adeega qiimihiisu uu yahay 4250 waa 5 adeeg oo kala duwan. tan toddobaad adeega qiimihiisu uu yahay 6250 waxaa ku jira miraha cambaha ayaa ku jira. adeega uu ku jiro miraha barduhu waxa ay shilin soomaali ay noqonayaan 1000 ayay ka badan yihiin. adeega uu ku jiro moosku ayay maaragta 1000 ka badan yihiin. midda sagaalaad adeega ay ku jirto yaanyadu waa adeega kuushi ama waa adeega qiimihiisa uu yahay 6250. marka sidaas ugu shaqaynaysaa, sidaas ayaad marka aad u wadaysaa. bas masalada waa akhrine, marka intaas ayaad maaragta bes aad ku buubuuxine. waana fudayd. hal mar marka ugu horeyda keliya ma ahan, hal mar, 2 mar, 3 mar ayaa la akhriyaa. waxaa loogu talagalayaa maskaxdaadu iyadoo maaragtay aad ugu fiirsanayda inay waxaas kala qaadqaado falanqaydo. mawduucii ayaan gelaynaa marka oo casharka. intaasoo dhan hordhac ayay ahayd. masaladii ugu horeyday iyo midda ku xigtay labaduba waxaa maskaxdaada ayaa la diyaarinayay. maxaa la diidan yahay? waxaa la diidan yahay mar walbo waxa macalinka uu ka shaqeeyo bes ina adiga fiirsanaydo. adigana inaa wax ku dari kartaa lagaa rabaa. adigana inaa wax ku dari karto oo wax curin karto ayaa lagaa rabaa. mararka qaar waxaa dhici karta waxyaalaha lagaa rabo waxaa kamid a macalinka inaad muddo kadib adiga inaadba maadada uga wanaagsanaa karto ayaa dhici karta. marka adigana shaqada qeyb ayaad ka leedahay. adiga mar walba ha isdhihin macalinka ayaad maaragtay kaa horey. macalinka hadda uu kaa horeeyaa sax, laakiin mustaqbalka waxaa laga yaabaa adiga inaad uga wanaagsanaato maadadan. laakiin waa dadaal marka aad sameydo shaqooyinka aad qabato. waayahay kalluun waa erey loola jeedo qaybo kamid a noolaha biyaha ku nool. xirfadaha kalluumaysigu waa wax loo adeegsado ka faa'iidaysiga barwaaqada ku jirta goobaha biyaha sida badaha, webiyada iyo harooyinka. webiyada waa taqaan, harooyinkana waa taqaan, meelaha biyo fariisadka ah. dhaqdhaqaaqyada aadanaha ee nolosha waxaa kamid ah jilaabashada, yacni dabashada kalluunka. xayawaanaadka markii duurka baadiyaha laga ugaarsiyaa la dhahaa markaas. laakiin badda markii malaayiga iyo waxa lamidka waxaa la dhahaa jilaabasho ayaa la dhahaa. marka xirfadihii hore bini aadamka waxaa kamid a jilaabashada,
dhaqashada waa xoolaha marka la ilaashanayo, falashada waa beeraha, iyo qaraabsiga ama qadhaabsiga waa miraha marka duurka laga soo guranayo ayaa la yidhaahdaa qadhaabsi ama qaraabsiga. waa miraha markii qofku wax kale uusan haysan, laakiin hawdka iyo duurka intuu tago uu miraha iyo xabagta iyo uu ka soo guranayo si uu ugu noolaado. jilaabashadu waxa ay ka mid tahay kuwa ugu da'da weyn dhaqdhaqaaqyada aadanaha. jilaabashada kalluunka ama malayga waxa ay ka socotaa meel kasta oo adduunka ka mid ah. dhammaan dad iyo dugaag way fuliyaan jilaabashada kolka laga reebo ugaarta iyo xoolaha. dadku kalluunka wuu jilaabtaa, xataa maaragtay xayawaanaadka qaarkoodna way iscunaan oo badda ku jira kalluunka way cunaan iyagana, marka way jilaabtaan dadka iyo xayawaanaadka qaar ka mid a marka laga reebo xoolaha iyo maaragtay ugaarta. iyagu cidna wax ma yeelaan, mirahaas iyo cawskaa bisay iska cunaan. waa kaasaa waay ya xooluhu cid wax ay cunayaan ma laha oo ay dhibaato geysanayaan, maaragtay miro iyo caws iyo waxaas keliya ayay iska cunayaan. ugaartuna waa saas oo kale. meelaha qaarkood iyo bulshooyinka qaarkood waxa uu kalluumaysigu u yahay xirfadda qura ee ay ku shaqaystaan iyo meesha keliya ee ay ka helaan nolol maalmeedkooda. sida uu muhiim u yahay daraaddeed bulshooyinka qaarkood waxa ay jilaabashadu u tahay dhaqdhaqaaq la sameeyo xilliyada ay fasaxa yihiin, oo waxay u tahay madadaalo iyo maaweelo. kuwii hore noloshooda dhan baaba ku taagneedbaba nolol maalmeedka. bulshooyin kale oo waxaa jira shaqooyin kale howlo kale leh, laakiin marka ay fasaxyo yihiin iyo dalxiiska marka ay yihiin madadaalooyinka iyo markaasay kalluumaystaan. kuwana saas waaye. soomaaliya waxa ay ku taal geeska Afrika. cabirka dhulka waxaa lagu qiyaasaa waa dhulka Soomaalida intaasoo kilomitir oo laba jibaaran ayaa maaragtay lagu qiyaasaa 637,540 kilomitir oo laba jibaaran. waaya kilomitirka laba jibaaran waay, laba iyadoo korka laga saarayo oo kaleeto waay. laba jibaarana laakiin qoraal loo qoray hadda. dhinaca bari waxaa kaga aadan badweynta Hindiya oo runtii ahayd in lagu magacaabo badweynta Soomaaliya. saas in lagu magacaabay ahayd, marka magacaas xataa waa nala ka xoogay. waayahay dhinaca waqooyina waxaa kaga aadan badda cas. dherarka xeebaha waxaa lagu qiyaasaa 3,300 oo kilomitir. dhul xeebeedka Soomaaliya iyo wax yaroo kaloo lagu daro ayaa mararka qaar la dhahaa. dhul xeebeedka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay kuwa ugu hodansan xagga barwaaqada kalluunka oo aan weli dalku ka faa'iideysan. meelaha ugu barwaaqaysan, badaha ugu khayraadka badan, laakiin weli annagu kama aanaan faa'iideysan. sidaa daraaddeed la yaab ma laha haddii jilaabashadu noqoto shaqada ugu weyn ee dadkeennu ka shaqaystaan. haddii lacalla ay noqoto waqtiyada ka mida shaqada ugu weyn, la yaab ma laho. waa saxoo xeebtii ugu dheereed iyo khayraadka ugu badnaay ayaan leenahay oo alla uuna siiyey. kalluunku waa ilaah ugu badan ee laga helo nafaqada tamarta koriinka. si fiican baa u taqaanin marar badan dhakhaatiirta iyo dadka yani caafimaadka yaqaan iyo koriimada bini aadanka iyo iyagoo ku talinaya in kalluunka maaragta in la cuno, hilibkiisa iyo saliidiisa iyo kulli in laga faa'iideysto. maxaa yeele wuxuu qayb ka qaadanaa tamarta awoodda koriimada ee qofka. xeebaha dalka waxaa ku yaala magaalooyin iyo tuulooyin maaragtay waaweyn, kuwaas oo dadka ku nool inta badan jilaabato ay yihiin ayaa ku yaala, sida maaragtay xeebaha bariga oo kaleeto. kumanaan kun sano muddo ka badan baa xeebaha Soomaaliya laga jilaabanayay kalluunka. marka taariikhda kalluumaysiguna xeebaha Soomaaliyana waa ay fog tahay. jaadadka kalluunka waxaa loo ableeyaa, waxaa loo qaybiyaa waay 3 jaad ama 3 nooc oo waaweyn, kuwaas oo kale ah duljoog, kalluun la yidhaha duljoog. duljoog waxaa laga wadan arki doonaya, iyo gunjoog, guntuna waa meesha hoose, iyo afaaf joog. kalluunka duljoogta ahi waa kalluunka had iyo goor laga helo dusha sare ee badda. waaba lagu sheegay. sidoo kale waxaa laga helaa dusha sare ee moolka durugsan ee badaha ama dusha sare ee meelaha dhow ee aanay baddu gunta dheerayn. meelaha baddu aysan fogeyn ee badda gunteedu ay dhowdahay iyo moolalkaas maaragtay ku yaala dushooda ayaa laga helaa. isaga oo isu raaca raxan koox ayuuna isu raacaa kalluunkaas oo duljooga la dhahay. waxaana ka mid ah kalluunkaas nooca la yidhaahdo waa fiyoole, hariiryaale, caydi, jeedar iyo maaragtay iyo wixii lamidka ah. noocyadaasoo mar walbo aan maqalno magacyadooda, kuwaas ayaa maaragtay ka mid ah.
kalluunka gunjooga ahi waxa waa gunta hoose jooga, gunta waa salka. kalluunka gunjooga ahi waxa uu ku nool yahay badaha guntooda hoose ee salka badaha. tusaale ahaan kalluunka barabaraalaha iyo kalluunka gacoore waxaa laga helaa oo keliya badaha guntooda. noocaas badda meesha hoosaa laga helaa. kalluunka barabaraaluhu waxa uu inta badan ku nool yahay oo uu ugaarsadaa kalluunka kale. waa kalluun kale ku nool. laakiin kalluunka gacoore waxa uu cunaa oo maaragtay dhuunyada nooleysha ku dhex nool waxa uu cunaa oo dhuunyadaa yani uu cunaaha laga wadaa u quutaa nooleyaasha ku dhex nool. maxaa la yidhaahdaa huubada carada ee badaha guntooda caradaas hoose ee badaha guntooda xayawaan ku nool. kalluunka gacooruhu waxa uu ukuntiisa dhigtaa oo ku aastaa meelaha gunta dheer ee ku aadan afaafta webiyada iyo gacamada badaha oo inta badan biyahoodu xareed ama muguc cusub ay yihiin. ukuntiisana meeshaas ayuu dhigtaa, gunta hoose dhinacyada afaafta webiyaalka ama maaragtay faraha ama gacanada ka baxa badaha oo ka leexda. gacanka badda waxaa waaye maaragta xoogaa yar oo ka leexanaya baddii oo beriga dhulka maaragta beriga dhex maraya oo dhex gelaya. gacanka kaas ayaa la dhahaa. baddii weyneed qayb oo kamid ahoo kasoo leexanayda oo baaxadooda aysan aad u weyneyn laakiin beriga gelayda oo ku fogaanayda, sida meesha ay ku yaaliin oo kaleeto waayo wadamada carabta ee la dhaho gacanka carbeed. waxa gacanka loo dhahayo baddaas weyn qayb kasoo leexanayda oo gacan ah ayay maaragtay ay ku nool yihiin. haye waayahay kalluunka afafjoogta ahi waa kalluunka qax iyo maaragtay guurguur badan, isagoo mar walba wuu socsocdaa. inta badanna waxa uu joogaa meelaha afaafta ah ee ay webiyada iyo baduhu iskaga darsamaan. webiyada iyo baduhu way isku darsamaan, way isku darsamaan marar badan. waa kaasaa webigeena maaragtay anaga jubba iyo badweynta hindiya sow maaragtay ma isku darsamaan. meeshaas isaga darsamaan yontooy la yidhaahdo meelahaas oo kaleeto si isaga darsamayaan waay. laakiin webiga maxaa la yidhaahdaa shabeelle isaga badda kuma darsado waad ogtihiin badda intuusan gaarin ayuu maaragtay ayuu u faafaa. waa kaasaa haye deegaanada oo baraawe marka uu tago badda maaragtay uu dhow yahay halkaas ayuu maaragtay ugu kala faafayaa. xayawaanaad aad u badanna halkaas way ku nool yihiin. waayahay jaadadka kalluunka afaafjoogta ah waxaa kamid ah bacadle iyo baroyare. kalluumaysatada ka shaqaysata jaadadka kala duwan ee kalluunka afaafjooga waxa ay jilaabashadoodu noqotaa mid xiliyeed xilli. sidaa awgeed waxaa la jilaabtaa kalluunkaas oo shabaagta loo dhigtaa xiliyada uu guurayo ee uu geediga yahay. ilaan wuu guurguuraa isagu markaas uu geediga yahay oo isagayoo fara badan oo koox koox u socda. xilligaas way yaqaaniin kalluumaysatada. xilligaa ayaa marka loo dhigtaa shabaaqyada loo dhigtaa. kalluumaysatadu waxay isticmaalaan habab kala duwan oo ay ku dabtaan kalluunka. hababka lagu shaqaysto ee kalluumaysiga ama jilaabashada waxa ay ku xiran tahay jaadadka kalluunka ee aad doonayso inaad jilaabato. deegaanada ay jaadadka kalluunku ku nool yihiin way kala duwan yihiin. sidii aynu kor ku soo sheegnay kalluunku waxa uu kala yahay gunjoog, duljoog iyo afaafjoog. haddii jalaabashada ujeedadu tahay ganacsi, marka dadku marka ay kalluumaysanayaan laba ujeedo ayay leeyihiin. marna waxay ka wadaan inay ganacsadaan ayay doonayaan oo mar waxa waaye waa maaragtay waa ganacsato, marna inay cunaan ayay doonayaan. marka jilaabashadu haddii ay tahay haddii ay jilaabashadaasi maaragtay ay tahay ganacsi jilaabashadu waxay u baahan tahay markaa qalabka kan ganacsi markaa way kala duwan yihiin. jilaabashada aan ganacsiga ahayn, jilaabashada ganacsiga ahay waxay u baahan tahay qalabka kan yani qalab adag iyo makiinada waaweyn. laakiin jilaabashada aan ganacsiga ahayn uma baahna agab badan oo lagu kalluumaysto. qofku markuu rabo kalluun uu isagu cuno qalab fara badan uma baahna. hababka jilaabashada ee kalluunka waxaa kamid ah halgaad waxa in wax lagu dhifto wax lagu tuuro. waxaa kamid ah halgaad, waxaa kamid ah salad ayaa loo dhigayaa shabaq yar ama dembiil yar wax ayaa loo dhigayaa. shabaq daadinta, shabaqan aan naqaano oo kalluumaystada badan isticmaalaan oo ay badda ku daadinayaan. shabaag jiidashada
mid oo markab iyo waxaas ku xiran oo la jiidayo xarkaha qaroofan xarko oo qarqaroofan yaa oo uu soo dhex gelayo aan isku toosnayn dabinka teedka waafiyaha roolaha maqaalinta intaasoo dhanaa ka mid maqaalintuna waa midda oo ugu sii tabarta daran marka la fiirsho maqaalinta si fiican baa u taqaanina u malaynaa taas maqaalintu waxa waaye bir yar waaye shabaq maaragta iyo waxaas iyo maahan hal maruu badda uu ku tuuraa xarig yaraa ku xiran marka birtaas hal malaay bisaas oo geli kara hal xabo keliya ayay soo qaban karaydaa birtaas hilib yar ayaa lagu dhejinayaa marka markuu arko hilibkaas isagoo badda ku dhex jira wuu soo aadayaa hilibkii qaniin markuu isdhoo cun isagii ayay ku dhegi marka qaybahaasoo dhan waa qaybo oo fara badanoo loo adeegsado waa ereyadii uu ku dhahaya daatay inuu ardaygu barto ayaa la rabaa aqoon baaris la sameeyey yaa maya aqoon baaris la sameeyey 1989kii ayaa lagu ogaaday in dhulbiyoodka Soomaaliya ay ku jiraan ama laga heli karo ugu yaraan 32 jaad nooc oo kalluun kala duwan ah waa ka 32 maaragtay nooc ayaa ku jira iyadoo aan weli xilligan ilaa haddada aan joogno aan la ogeyn jaadadka dhabta ah ee ceegaaga badda Soomaaliya yani 32 la ogaaday laakiin waxaa laga yaabaa inay kasii badan yihiin ceegaagana waxa waaye ka buuxa ayaa laga wadaa ereyga ceegaagiddu waxa waaye ku badan ama maaragtay ka buuxa inkasta oo xog ururin la sameeyey biyaha Soomaaliya ay muujinayso inay jiraan jaadad kalluun oo muhiima biyaha badaheena waxaa dhab ahaantii loo arkaa inay ka mid yihiin biyayowga adduunka kuwa ugu hodansan biyaha adduunka kuwa ugu hodansan ee ugu muhiimsan kalluunka badaheena waxaa laga helaa dheef badan nafaqo badan oo ay ka mid yihiin tamarta korriinka awoodda jirku ku koro saliid nafaqo badan leh saliid kalluuneedka waa taqaanin hadda say qaali u tahay iyo muhiim say u tahay dhaqaatiirta say uga dardaarmaan mararka qaarkood yaa baanasho jirkiyo oo soo kabanaya oo xoogaysanaya nafaqa darro markay ku dhacday ama dhaawac gaaray soo baananaya iyo wax lamida sidoo kale waxa uu u fiican yahay dheefshiidka qayb ayuu ka qaataa waayo si fudud ayuu u shiidmi karaa hilibka kalluunku inta badan waxaa lagu taliyaa in la siiyo dadka jiran iyo waayeelka dhibaatada keliya ee kalluunka uu leeyahay waa isaga oo degdeg u qurma kolka laga soo saaro badda yacni haddii aan isla markiiba la daryeelin oo aan la xafidin wuu urayaa wuu qurmaya dhibaatadaas ayuu leeyahay yaa waa ka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka buu ku sheegay mugtaa badda markuu ka sheegaynaya kalluunka watastakhrijuuna minhu maaragtay waxaa la yidhi laxman dariyan ta'kuluuna minhu laxman dariyan hilib oo cusub oo nadiifa ayaad ka cunaydaan laxman dariyan ayuu ilaahay ku tilmaamay hilib yacni cusub oo nadiifa waaye marka faa'iidadiisu waa inta uu nadiif ka yahay hayo sidaa darteed waxaa la isticmaalaa habab kala duwan ee lagu kaydiyo hilibkiisa si uusan u qurxmin hababkaas cusub waxaa ka mid a adeegsiga qaboojiyayaasha iyo in wershaduhu degdeg u gasacadeeyaan si loogu qaadi karo meelaha badda ka durugsan ee magaalooyinka iyo tuulooyinka ah waa taqaanaa hababkaas haddii aynu Soomaalida nahay waxaa isweydiin leh waa maxay sababta keentay in aan laga faa'iideysan barwaaqada kalluunka ee badaheena dhex eegaagan guud ahaan jilaabashada kalluunku ama kalluumaysigu waa mid aad u hooseeya oo liita arrintaasna waxaa loo aanayn karaa qodobada ay ka mid yihiin marka qodobadaas waan sii falanqayn doonaa xisada dambe casharkeennii marka maanta intaas ayuu casharkeenniina uu noogu eg yahay marka si uunan usii dheeraanin aad iyo aad u mahadsantihiin xisada kale ayaan sii dhammaystiraynaa.